waxa wanaagsan dadka qaar inaad ka duwanaato maxaa yeelay ficilada ay sameynayaan ayaa kugu qasbaya inaad ka socnaato waxaadna uga socnaan kartaa 1 naxariista aan shuruudda lahayn sida qof aadan aqoon oo aad dhiig u shubto taasi waa mid dunida qurxinaysa 2 daqiiqadaha aad dadka la joogto u qurxi isla markaasna ha dareensiin culayska nololeed ee ku haysta 3 waxaa qurux badan marka qof lagu weydiiyo inaad soo hormariso wanaagiisa dhanka xumaantuna ha noqoto layli ay ka soo shaqeeyaan 4 waxaa sidoo kale wanaagsan in sirtaadu ay kugu ekaato kuwa dadka kalena tabarta aad ku raadinayso aad isboorti ama jimicsi ku samayso 5 haddii aad dood ka badiso qof isla markaasna uu u muuqdo qof aan garaabayn ceeb ma ahan inaad isdhiibto sababtoo ah markan isdhiibidda ayaa badis ah 6 salaan mudalabka ama qofka salaanta dalba noqo u dhoola cadee shaqaalaha nadaafadda la ciyaar carruurta dhagayso waalidka si hadiyad macallinkaaga weydii sida uu yahay aabbaha masaajid u samee hooyada shoocaca farxadeed ee aad ka heshana ka dareen gudaha kuna qurxi maalintaada 7 shaqooyinka habeenkii dadka qabta sida kalkaalisooyinka askarta waardiyaha guriga ha ku adkaynin hadalka u ahow baari marxalad adag ayay ku shaqaynayaan iyagu 8 geed beer biyo sii ha koro kuwa harsada ayaa kuu mahadcelin doona adiga oon meesha joogin akhri buug kobci maskaxdaada kuwa ku dhaqma ayaa wanaaggaaga sheegi doona adiga oo joogin meesha 9 u naxariiso xayawaanka bedel dhaqanka ah inaad disho noolo walba oo aan aadana ahayn curad hooyo iyo aabbe ayay u qaybsamaan mana ogid gafka aad u geysanaysid meesha uu ka abaaray qoyskaas xayawaanka ah 10 kibirka hadalka adag qalafsanaanta beenta codka dheer ee telefoonka aad ku hadasho dhageysi la'aanta muranka badan xitaa haddii aad labisan tahay waa kuwa ku qaawiya adiga oo aan is ogeyn mana ahaan doontid qof loo xiiso saaxiibada sharafta leh ee ku xiran bartan waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe saartaan barta YouTube-ka ee walaalka show waxaan idinku soo gudbin doonaa sheekooyin waxtar u leh bulshada iyo kuwa iska maad ah saaxiibayaal adinkuna inagu dhiirigeliya like-ta share-ta iyo subscribe-ta mahadsanidin